محبوس هو حلم بوصحة حنوصنية أريم عفاد بهاي كاسي بارتاك نوع سعودة نكاسون حنوصنية بها أي سلوتي واللي بقى الله ساري حنون نقبي نقعد أي سلوتي مجتمع السيف ده هو أنا بعد حنو كاسي نكاس واحد له يفرض سبحانه وتعالى بارتاك سيدوا سعودة وصوب حنا arrimaha jeelasha sideeda bas xaad wasiir balka maxaabiista iyo saad ula dhaqanti loola dhaqmo maadaama tii wasiirka cadaalad ma loo sameeyaa xuquuqdoodii caafimaadkooda ma la ilaaliyaa balka war tilaaba cadila dhimashadana de kuwii caafimaad qaba marka dhimanaya kama duwana marka si gaar ah inuu yiraahdo jeel baa lagu dhintay maalin kasta meyd baa yaala oo inoo buuxa dhaawac baa yaala dhibasha taala waa sunnatul hayaa geeriduna waqtigeeda ilaahay ka dhigay hase yeeshee marka hore maxaabiisteenu iyo maxaabiista caalamka ba tawid ilmeeyay marka laga hadlayo de qof xiriir laga qaaday isagoo dambi galay horta wuxuu dhiman ma jiro laakiin de mujtamaca si loo ogaado loona badbaadiyo inta caafimaad qabta loona badbaadiyo inta wanaagsan ee qofkii dambi gala waa inta sharci wax weeyaan qofka laga qabto qofkii qofta in la dilo marka de wax laga sameeyo war gaar ah maalin kasta wax cid baa shil baa lagu dhintaa qof baa isdila qof xanuunsan meel iska soo tuura qof baa iskuba waa sunnatul hayaa marka ma oran karo wixii ilaahay uu sababay oo waqtigeedii taagay wuxuu dhintay laakiin de kulliba intii daryeelayna awood u leenahay annaga waajib ilaahay nasaare weeyaan aad baa loo hagaajiyaa jeelashii wax badan doonayna ka bedelo waa la socotaan jeelal badan baa imka dhismahooda socdaan xukuumaddani way u dadaashay iyo mujtamaca dadka gaarkiiba in badan oo la shaqayso mujtamaca way jiraan ilaahay ka tusaysiiyey oo iyagu istira oo qaar baa u soo timaabo soo xira qaar baa u soo nadiifiya oo dad istiraya marka de idinka saxaafadda laftiinu waxaa u baahan tihiin inaad oran maxaa u qabateen idinku maxaa u qabateen maxaa u diyaartiin la qabataan waa mahadsantiin way wasiiriyay su'aasha ku shaqeysay shacabka Soomaaliland si weyn waxay cadaalad aad uga cabanayaan cadaaladda way laga cawdaa waayo gar marka la qaado midna waa midna waaya inta weyda oo way cabanaysaa marka natural waa sunnatul hayaa qofkani muxuu waay marka hadii la yiraahdaan halkaas arin gaar ah wax ka dhaceen gudi wax jira cadaalad oo gaar loo saaro waa jira oo dib u eegta oo cabasho loo gudbiyo nidaam inuu u qaato xabaa ma jira maanta waxaan aaminsanahay ilaahay baa horta caadi noqon kara in alla intii loogu tala galay in la ilaaliyo inuu ilaalino dariiqii la marayna loo sameeyay laakiin mar walba wax ogaatan gar la qaado midna waa midna waaya rasuulka ciise wuxuu yidhi anigu waxaan ku qaaday gartan xaqiiqii isagu wax ula keentay waa dhakhtarka kale marka uu dhakhtarka aad halkaas ay xanuunaysaa waxay aad u sheegtay hordooda ku siiya hadduu xanuun de muuqdo oo dhaawac uu jiro de aalada u sheegta garyaqaanka marka uu timaadaan labadiina wax uu sheeganaysaa rasuulka ciise wuxuu hatta hadii kii xaq lahaa aan ka xukumay afkiisa kuma xalaalin buu yiri kaluu naar baa raacay qofkaasi raacay xukunka ay dambi ku dhacay qaatay ee asoo og inuu qaatay inuu naar qaatay ma horta marxalad ka ah waxaan leenahay ilaahay kaga baqa daarta beenta adaaya marxaladiga beenta adaaya shilinka ka raadinina halka saxaafadda waxaan leeyahay idinkana tiino mar walba la hadlaa ma hayna saxaafadda aan ka soo horjeedo ma hayna waxaan leeyahay risqiga xalaal noqdo oo meelaha wanaagsan iyo wax wanaagsan mujtamaca u tilmaama oo wax badan baa runtii toosin kartaane waxa tiin qayb kamid oo muhiim ah waan idinku jecelahay ما هاي مرة بيع عمرنا عنك ليه إلهي كجبقة وواحد شيء يسوي وراك هرنتها وحلا يصدق شيء أن ماما صدق حزوع عز خصوص المريض أقوله ما كان سيوم حاد عي نار ما قصر حاجة صدق شيء بعده وأن ماما بس كنت راح وركو كلا قاضي منك هذا نسكت بس لونه وأكون على من محاكي صدق هذا مركا واحد مهمة قيب دنباليدي صحافتها أنت شريعة الإسلام إذا كان قابل سنة خصوصا يكون حلال بيو برتا علماءنا ويدية إذا كنا بارا إلى هذه السياسية ودكان إنه جامعين لو بحناي إنه توصلين لو بحناي وأرد القوات اللي يحتوسين كرتا تذكر يسوي البستان طريقة سنة حكتوفين سيء حلال وخليان نظام هذا وحبذا بقوا بهذا حق قبطان وما